xildhibaanada baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa 5 sano soo socota waxay madaxweyne u doorteen mudane Siciid Cabdullaahi Dani. doorasho adag oo ka dhacday magaalada Garowe ee caasimadda maamulka Puntland ayaa wareegii saddexaad waxaa isugu soo haray Asad Cusmaan Cabdullaahi iyo waliba Siciid Cabdullaahi Dani, waxaana 35 cod ku guuleystay Siciid Cabdullaahi Dani halka Asad uu helay 31 cod. halkaasi ayaa sidoo kale waxaa khudbado kala duwan ka jeediyay madaxweynaha guuleystay Siciid Cabdullaahi Dani iyo waliba musharaxa laga guuleystay ee Asad Cabdullaahi Cusmaan, waxayna labadooda isugu mahad celiyeen tartankii adkaa ay soo wada galeen. sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, asagoona sheegay in doorasho xalaal ah ay ka dhacday maamulka Puntland loona baahan yahay shacabka iyo waliba mas'uuliyiinta Puntland in si wada jir ah ula shaqeeyaan madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Siciid Cabdullaahi Dani.